السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. إمك بين بالبرتي وحكستو بين شيغبا إلهيو إله أفك قبو أفك أو بين تكو شيغايو إله ساو قبو تاريخ دا سوغان نينكو سو غلا أو قرعد أو ريبورما أو كسو شاب محبوغي قراء عبد الله حاجي وقري قراغي شرفت لها إلهي شرفت أو يالبوغو قري وانكي بروباغونتك قليي بوغا وحا كو قرن صدوهدا والله سبكا وانكي بروباغونتك قليي بروباغونتك قفك هدو لسي ديرادو لقبو وايو wax kale uu sii sheega wax badan buu sheegay oo halkan ha soo galin doono hadeed ninka wuxuu sheegay kama sii hor dhacaayo xasan guuleed abtidoon buu been ka sheegay bal beentiisa ila dhageysta taariikh sugan Facebook iyo TikTok iyo YouTube ka ayaa waxay igu codsadeen inaan waxyaabo badan oo aan muddo dheer ka soo sheekeynay inaan dib u weer noqdo oo aan ka qanciyo 1986 markii uu booqday Allah u naxariistay xasan guuleed muqdisho tagay dawladda maxamed siyaad barre wuxuu uga mahad celiyay ka qayb galkiisii uu ka qayb qaatay xoreyntii Djibouti xag dhaqaale iyo xag siyaasadeed iyo xag cudud militariba aad iyo aad buu uga mahad celiyay mahadnaqa uu mahad celinayay waxa u dheera xasan guuleed oo markaa gacanta ku sitay codsi wuxuu ku yiri anfarba naga dhul badan haddii aanu nahay Soomaalida Djibouti haddaanu nahay anfarba naga dhul badan waxaan u baahannahay wili walaalku dhul aanu ku yar baxsano oo waxaan jeclaan lahayn buu yiri qaybo kamida maxay ahaydeen degmada Boorama oo markaa degmada Saylac in aad nagu soo darto oo Djibouti ku soo darto si ay cudud Soomaaliyeed iyo dhul Soomaaliyeed ay maxay ahaydeen ay u muuqato Djibouti uga muuqato maadaama ay anfartu naga dhul badan tahay maxay ahaydeen waxaan rabnaa buu yiri dhul aanu anaguna Soomaali ahaan aanu la khirrad in la noqono oo la dherer iyo la maaba inaanu noqono ayaan rabnaa buu yiri dhul baanu rabnaa buu yiri anfarta aanu kula gurgurtami karna buu yiri waxa ku yiri xasan guuleed baa ku yiri Allah u naxariistee siyaad barruusa ku yiri Allah u naxariistee labadooda bee siyaad barre oo ahaa nin wadaniya nin ma yar adag aad iyo aad buu kelmadda ugu qoslay kadib xasan guuleed wuxuu ugu jawaabay adiga bal xasan oo kugu soo soconnaa aanu rabnaa inta Soomaalidu degtay ee Djibouti beenaale ninka wuxuu ka hadlay wadarkiisina ka codkiisa ay soo dhigi doonaan waxa uu ka hadlay inuu xasan guuleed 1986 uu muqdisho tagay waa beenaale ilaahay ka go'ay isaga beenaale ah ubadkiisa beenaale ah aabihii baa beenaale ah xasan guuleed 1986 ma tagin kolka beenaalow adiga wixii ku soo sheegay xasan guuleed muqdisho ma tagin 1986 sida buuga xeerka ciisa been uga sheegtay ayaad xasan guuleedna been uga sheegtay ina beenaala tahay ina warxuma tashkiil baa tahay ina burubagoond baa tahay taas waa taa kolka dadkii taariikhda ogow xasan guuleed 1986 ma tagin muqdisho sanadkii uu tagay dadkii garnayow ee taariikhahayow xagga ay igu soo qora fiidiyogayga waxay niga codsanayaa dadka diigii xasan guuleeda ee xasan guuleed la tirsanaya meesha ciise weyne ninka beentiisa waa inaad ku qabatiin oo meediyaga soo wala dhigtiin inuu beenaale yahay ninkaas waa ninka yiri sodohda ciisuhu waa loo subkaaba buuga ku qoran waa kitaab isaga kitaaba ilmihiisa kitaaba aabihii baa kitaabaha oo waa waxan maaragtay beentan la sheegay taariikha beentan laga sheegay xasan guuleed ma tagin 86 shirki igaad baa ka dhacay Djibouti oo migiste iyo siyaad barre shirki igaad kalku dhamaaday war heshiiyu ka yiri oo waa ku dar ilaahay u heshiiyay labadoodii migiste iyo maxamed siyaad barre Allah u naxariis maxamed siyaad barre 86 waa kolkii uu loo cruiserada siiyay xasan guuleed siyaad barre ee uu yiri dhulka siimar
ee dhulka uu ku maray gaadhiyaal lonkruusarro uu siiyey xasan guuleed ay low iyo cadde wala fadhiisteen taa qabso beenaale kataab beenaale ilaahay ka go'ay baa tahay adiga iyo awlaaddaadaad ku dhashay beenta adigana waa lagugu dhalay beenta u geeya videoga ninka sidaa hawsidiin u geeya dadka ciise ee social media ku jira tiktokerada ninka taariikh sugan buu ku soo galaa waa nin buugga ciisaha soo iibsoo been ka sheegayey oo beentiisii lagu wala qabtay maantana xasan guuleed uu been ka sheegaya allah u naxariisto xasan guuleed u soo wala duceeya kollayba qofka dee qofka shaqaysta ifka ku shaqaysta waa la yaqaanaa xasan guuleed ifka ku shaqaystay waa dadka ilaahay daacadnimada ku dhintay isagii ooridiisaba caasho boqorre allah u naxariisto janna firduus calaa allah ka waraabiyo isagii khayrkiiba laakiin sida soomaalida inaan noqono maahin dadkii sharafta lahaa giddaab kasta inuu soo hadal qaado maahin uu been ka sheego soomaalida been iska sheegta taariikhay been ka sheegaan suntoodii iyo beentoodii ayuu nala soo galay kana kolkaa taasi waa taa xasan guuleed 1986 muqdisho ma tegin laba goor buu xasan guuleed tegey beenaalaa tahay ilaahay ka go'ay laba goor buu tegey labada goorna waan haynaa kuma sheegayno tolkaa soo weydii taariikh waxaa tolkaa hay ka garanayaan xasan guuleed hadday dee saada been ka garanayaanna ilaahay beentaa ku dilo taasi waa taa xasan guuleed 1986 ma tegin muqdisho beenaalaa tahay siyaad barre iyo migistaa yimiday igaad baa lagu qabtay shirka jabuuti beenaale iyo xuni yaa kataab waa kaa halkaa igu soo qora xasan guuleed laba goor buu tegey inta uu noolaa muqdisho sanad labadii sano uu tegey sanadadii uu tegey xaggaa ku soo qora dadkii taariikhda hayow anigu dee waan hayaaye masiibada uma sheegayo halkaa kama sheegaye waa kaa taariikhda sugan maahin waa taariikhda munaafaqada ku bedilo taariikhda munaafaqada ku bedilo taariikhda suganow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته